sida caadadu ahayd waxaan u soo shaqo ayaan ahay anigoo shaqadeeda ku socdo goobta shaqadeeda ayaa waxa lagu istaajiyay daljirka dahsoon oo markaas askartii joogtay ee istaajisay ee dhaheen indhashareerka qaad dadana markii aan indhashareerka iska qaaday ayay waxay yiraahdeen ninkii askariga wuxuu yiri soo deg adig markaan soo degay ayuu waa laga shakiyay intii istaag meeshii aan istaagay marka wuxuu wacay taliyihiisii oo wuxuu yiri taliye waxaan ka rabaa in waxa joogto waxa meeshan ku haynaa nin xijaab iyo indhashareer soo xirtay marka kadib taliyihii wuxuu yiri bajaaj soo saar ninna soo raacay oo askari ah saas marka lagu keeno saldhiga sidii marka saldhiga lagu keenay aniga iyo askarigii iyo waxaan ku tagnay markaas saldhiga marka tagnay akhbaarteedii wada sugaayeen oo iga soo horeeyay akhbaarteedii markii aan tagnay taliyihii iyo dadkii ciidanka oo dhan wada taaganaya booliskii aan tagay marka tagay taliyihii hadal igu bilaabay marka wuxuu yiri assalaamu calaykum magaca waxaan iri waxa Faiza lidhaha markaas wuxuu yiri tan diyaas barawaaye nin diyaas barawaaye waa wacdahay gabar markaas aan oo meesha taagneed oo boolis ah oo laakiin ka muuqanin dharkii uniformkii boolisnimada ka muuqanin oo iska moodis ciyaal xaafad ayaa meesha taagneed markaas waxa la yiri soo bar gabadhii horta meeshii ayay hanjabaad igu bilowday iyadoo markaas ii haysata nin ina ahay hanjabaad iyo aflagaada igu bilowday waas raacnay waxay geysay qolkaas oo qolkii oo inay igu baartay ahayd qolka laakiin waxa jiifeen 5 dumar 5taas dumar ee ahaayeen dumar oo muxuu ahaay shaqo markaas aan isdhahay way ka soo degeen ee meesha jiifeen dumarkii ka cisay waxay tiri ka baxa banaanka u baxa gabadhana qofkana baara oo nin looga shakiyay ee gabdhihii ugu sheekaysay marka gabdhihii waxay yiraahdeen ayagoo hurdo heeso ma baxeeno gabadha qofkan nin waa u jeednaa meeshiis ku bar anaga hurdaan heesay madaa soo markii jiifka ku noqdeen gabadhu waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri dharka siibi maayo shaqadaadu waxay tahay in ay baartid hadaa baaritaankaas wax ku fahmi weyso waa ina ii gudbisaa marka taliyaha markaasi baaritaan ka baxsan oo intaas ka tayar badan inuu keensado markaas isaga gabadhii timihii iyo wixii inta taabanaysay waxay tiri qofkan timeel leedahay timina dheer leedahay marka mid meesha jiiftaa soo booday waxay tiri nin hadda ka hor la qabtay oo xijaabi wax u xirnaay timuu lahay timida dheer u lahay ee timaha fiirinin gabadhii markii way sii taataabatay zaa'id ay taataabatay markaas muxuu ahaa mid kale soo booday waxay tiri tan way tababaran tahay waxa way ku ciidan oo muxuu ahaa qolooyinkan xaq jirka oo hal sano oo ciidannimo soo martay kadib marka gabadhii qalqala galay oo ay baaraysay gabadhii marka intaana qalqal gelinayay 5 meesha jiftay soo marka gabadhii markay baaraysay waxay qaadayso go'aan inay taliyihii ku celiso isla markii inay dhahdo qofkan waa gabar gabadhii marka waxay tiri hadaa sii deysid gabadha hadhow hadii wax noqoto adiga shaqada laga casilaya adiga muxuu ahaa wax noqonay marka gabadhii waxay rabtaa inay ku adkaysato inay si fiican ii baarto mid kale soo boodo waxay tiri ninkan wuxuu marsan yahay cilaan marsana had soo baxay kadib intii markay qaadatay ayaa waxay isku dayday marka gabadhii baaris inay wareysato dan waxa ku dhacday baaritaan kaliya lagu amray ma lihid inaad muxuu ahaa aad samaysid markaas wareysi iga qaadi wareysi hadii la qaadayna waa ina OB-ga dhigiyaa dan taliyihii ku soo noqotay waxay tiri gabadhan way diiday in la wareysto